بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين waxaan halkaan u soo istaagay inaan idin la wadaago magacaabid xubnaha golaha wasiirada dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya sida la socotaan xubno kamid ah golaha wasiirada dowlad goboleedka koonfur galbeed ayaa waxay kamid noqdeen baarlamaanka 11aad ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayadoo la dardargelinayo ahmiyad go'aan la siinayo u adeegida bulshada ayuu madaxweyne Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafdigaran sidoo dhaqsiyaha badan u soo magacaabay xubnahan si ay u dhameystiraan shaqooyinka horyaala golaha xukuumadda warqadan oo ka soo baxday xafiiska madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa u qoran sida tan ujeedo magacaabid xubnaha golaha wasiirada dowlad goboleedka koonfur galbeed xeer madaxweyne eber 6 Juun sanada 2022 kuna saabsan magacaabid xubnaha golaha wasiirada dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya markuu arkay dastuurka dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya qodobkiisa 48 farqadiisa 2 iyo qodobka 54 farqadiisa 1 markuu arkay baahida loo qabo dardargelinta howlaha dowladda iyo ahmiyadda golaha wasiirada dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya markuu tixgeliyay aqoonta iyo aragnimada mudanayaasha jagada soo socota loo magacaabayo wuxuu soo saaray xeerkan qodobkiisa 1 magacaabid xubnaha golaha wasiirada laga bilaabo maanta taariikhdu ay ku beegan tahay 6 Juun sanada 2022 wuxuu madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya magacaabay xubnahan cusub Cabdullaahi Xaaji Xasan wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowladaha hoose dib u heshiisiinta ee dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya Dr. Ali Abdi Macalin ayaa loo magacaabay wasiirka wasaaradda qorsheynta maalgashiga horumarinta dhaqaalaha ee dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya Maxamed Isaaq Abdi wasiirka wasaaradda amniga gudaha ee dowlad goboleedka koonfur galbeed ayaa loo magacaabay Xasan Abdi Nuur Aadan wasiirka gaadiidka dhulka ee dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya oo ugu dambeeya Sandere Maxamed Iftiin ayaa loo magacaabay wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo dhaaqa ee dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya xeerkan ayaa dhaqangal noqon doona marka uu saxiixo madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafdigaran wuuna saxiixay وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.